kulanti wanaagsan oo waxaan meel kastoo aad dunida ka joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka ifiye oo toddobaadkan aanu diiradda ku saari doono haddii allah awoodda la yidhaahdo waraysi aanu la yeelanayna madaxweynaha dowlad deegaanka soomaali galbeed mustafa maxamed cumar oo asagoo aaladda skype-ka si toosa ugu jira iminka kuna sugan xafiiskiisa magaalada jigjiga haddii allah awoodda la yidhaahdo waxaanu ku eegaynaa ifiye qaybtiisa toddobaad dhibaatooyinkii ka dhacay maamulkaas ama dowlad deegaanka soomaalida intuusan asagu imaanin wixii madaxweynaha u qabsoomay wixii u qabsoomi waayey iyo eedeymaha iyo dhaliilaha loo soo jeedinayo waxaanu diiradda saari doonaa wixii ka dhacay jeel ogaadeen waxaanu eegi doonaa khilaafka u dhexeeya dowladda mustaf uu asagu hogaamiyo madaxweynaha uu yahay iyo jamhadda xoreynta soomaali galbeed waxaanu eegi doonaayoo kale haddii allah awoodda la yidhaahdo shakhsiyaad ayagu eeda ka tirsanaya madaxweynaha waxaanu kaloo eegi doonaa haddii allah awoodda la yidhaahdo shakhsiyaad ayagu saxafiyiin ahaa oo xirxiran iyo sababta loo xireeyeen sharciga loo maray iyo qaar kaloo badan waa ifiye iyo qaybtiisii toddobaad oo si toosa iminka hawada ugu jirta waxaana jecelahay marka hore inaan madaxweynaha kusoo dhoweeyo si diiran waa madaxweynihii ugu horreeyey ee asagoo xil haya barnaamijka ifiye soo hor fadhiista waxaanu leenahay geesinimo ayaad muujisay laakiin war jiraaba cakaaroo imaan mudane madaxweyne kusoo dhowow barnaamijka ifiye aad baan kaaga mahad celinayaa inaad wakhti qaadatay inaad bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dowlad deegaanka soomaali galbeed aad adigu madaxweynaha u tahay in maaragtay aad su-aalaha ka dhexe guuxaya aad ka jawaabtid marka hore waxaan jeclaa inaan wax kaa weydiiyo intii adigu aadan xilka qabanin xaaladdu sidee bay ahayd sawir guud naga sii ويا عبد الحافظ وما صنتهاي بسم الله الرحمن الرحيم أدي أنا أقول فرحسنا أنا وأنا برنامج كان ورنتي ودادين وريه صوماليات أن كنت المهم كروياش أو خبرة دون أكسن دانك جورناليزم كه إن أكسر قيب قلو أدي أنا أقول فرحسنا هاي صابت هو إن هو قراضي انترفيو قال إنه هاي احترام وهي وريها وريه عبد الحافظ وهذا وريسنا يضو lala socdo in xiriir ka dhaxeeya xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo shacabka guud ahaan iyo Universal TV uu ahaa mid aan taariikh wanaagsan lahayn oo shacabka deegaanka badankiisu ay u aaneeyaan telefishinkan inuu qayb ka ahaa xaqiraadii iyo maaragtay marihaabintii shacabka deegaankaas intii uu ku socday xasuuqu haddana inaan maanta fursad uga faa'iideysto arrintaa waxaa keenay kow inaan adiga wariyahan ku xiisayo laba in aan isbedel ka dhacay geeska iyo in furfuraanshahan horta la laftigiisu universal ay qayb ka noqoto ina maartay waa bari inuu bariyo inaan muujiyo ayaa laga soo maasantahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wahagaag haddii aad markaa u guda gashid intaa kadib waanu kaaga mahad celinaynaa waxaana jecelnahay khilaafkaas aad sheegtay u dhexeeya TV-ga iyo dadka shacibka halkaa ku nool iyo dowladduba in laga biskoodo oo laga heshiiyo oo la hagaajiyo wixii khaldamayna la saxo haddii ay jiraan iyo haddii kaleba maamulka TV-ga Universal baan u deenaynaa haddaanu ifiye caawa u guda galno intaadan xilka imaanin waxaad igaga warantaa bulshadana la wadaagtaa xaaladdu sida ay ahayd gaar ahaan maamulkii hore oo tegey inta uusan xilka ka teginin sidee bay xaaladdu ahayd ee dhabta ee aad meesha maxay tahay aad joogtid ee ka jirtay بسم الله الرحمن الرحيم حالات دبته كجيت halkan waxay ahayd meel xansuuq baahsan uu ka socdo oo ay wadeen kooxdii TPLF iyo nidaamkii dabadilifka ahaa ee wakiilka u ahaa deegaankan meel waxay ahayd wiilal badankoodu waxbarasho iyo aqoon badan aan lahayn oo dhalinyaro u badan oo miyiga laga soo ururiyay mas'uuliyad lagu dhiibay awood balaaran la siiyay awooddaasina ahayd awood lagu siiyay inay shacabkooda ay ka adkaadaan oo xansuuqaan taasoo keentay in kumaankun ay dilaan kumaankun ay xidhaan kumaankun ay waddan ka qaxaan kumaankun ay kufsadaan marka runtii meel masiibo bili aadam iyo masiibo xuquuqul aadam ka jirto ayuu deegaankani ahaa wax qarsoonna ma aha wax maaragtay si ballaaran loo dokumenti gareeyey hay'adaha caalamiga ee human right wariyaasha adduunka oo dhan ay ka hadleen filmaan laga soo duubay buu ahaa marka aag masiibo ka jirto shacab la baabi'iyey shacab broken society ummad burburtay oo akhlaaqiyan iyo maskaxiyan iyo bani aadamnimo ahaan laga saaray
ayaa runtii aan u imda odhan karaa iyo deegaan burburay oo nidaam dawladeed iyo haykel dawladeed midna uuna ka jirin waa gartay marka intaa haddii ay sidaa tahay waana kaaga mahadcelinaya sida usoo koobtay waa cusub baa bariyey ummadaasu isbeddel siyaasadeed baa dhacay waa loo riyaaqay maqshab iyo maqrib baa la isaga yimid waxaan markhaati ka ahaa dadkii soomaaliyeed ee isku soo noqday ee ka dhiidhiyay tacadiyadda kasoo sheekaysa oo dhacday iyo in kaloo fara badan oo halkaan lagu soo koobi karin oo lahaa maanta waa cusub baa idiin bariyey waagaas cusub adiga ayaa hoggaan u ahaa intaan iminka xilka joogtay maxaa kuu qabsoomay oo aad dhihi kartaa 1 iyo 2 iyo 3 baanu qabanay intaanaan u gudbin waxa kuu qabsoomay iyo dhaliilaha mucaaradka iyo bulshada reerkaaba ay ku soo jeedinayaan waxaan isku dayay inaan soo koobo oo aan detail badan sii gelin maadaama barnaamijka qaybtiisa dambe su'aalaha gaarka specific ka jawaab ay noqon doonto waxaan ku soo koobayaa 1 deegaan laga sii saarayay Soomaalinimada oo dhalinyaradii lagala dagaalamay fikirka Soomaalinimada soo celinay waa 1 waa wax noo qabsoomay astaamihii Soomaalinimada fikirkii Soomaalinimada kufaankii Soomaalinimada soo celinay 2 diintii iyo akhlaaqdii oo runtii la burburiyay oo mareysay meel aad u daran dhinaca xorriyadda loo diiday dadka inay diintooda sida ay rabaan ay maaragtay u cibaadaystaan afkaara inay qaadi karin oo xamili karin dusha laga saaray oo qaarkood wadana kale laga keenay akhlaaqdii oo lagala dagaalamay waalidiintii oo faraha ay uga baxeen caruurtoodii gabdhihii Soomaaliyeed ee sharafta ahaa oo qaarkood siyaalo khariban dad shisheeye ah waliba heer lagu casuumay la gaarsiiyay ummad maaragtay dhaqankii ka sii baaysa oo aan arintan soo celinay oo dadaal ka galay xorriyatu qowlka iyo xorriyatu dhaqdhaqaaqa iyo xorriyatu siyaasadeedka oo dhammaantood burbursanayd oo maanta aan oran karno tusaale u tahay maaha Ethiopia kaliya geeska Afrika oo dhan waxa kale oo noo qabsoomay dhisidii nidaam dawli ah inaan soo yeegleelo ilaa iyo heer xaafadeed heer degmo heer gobol ilaa heer muxuu ahay deegaan inaan dib u soo dhisno waliba dhismahaas uu noqdo mid inclusive oo dhammaan qabaa'iladu ay ka qayb galaan si ballaaran oo sidii hore ka duwan isla markaana dad aqoon leh oo dhalinyaro u badan oo ilaa iyo maaragtay shahaadooyin 2 iyo 3 haysta maamulku lagu soo daro ay soo buux dhaafiyaan laga shaqeeyo nidaamkii dawladnimo ee saa u lumay in la soo yeegleelo dib u habeynta xisbigii talada hayay oo isaga laftigiisu noqday xisbi dhiigii cabiin isku soo urursadeen in isagana dib loo kala hufo oo laga dhigo xisbi u adeega ummadda Soomaaliyeed aan ahayn xisbi loo adeegsado ummadda Soomaaliyeed waxa kale oo maareynay kala guurkii iyo kala dirkii ururkii EPRDF ee talada hayay markii uu kala tagay qaabkii deegaanadii hore aan uga tarsanayn ee anagu aan ka mid ahayn ay ku soo galayeen iyo shuruudihii lagu galayay in iyadana wax ummadda Soomaaliyeed maamulkeeda iyo nidaamkeeda wax u taraya qaab aan uga halganay waxa kale oo kor u qaadnay saamigii iyo sharaftii ay Soomaalidu ku lahayd heer federaal oo ugu horeyso shidaalkii oo 50% shacabkeena iyo deegaankeena maanta inay iyagu leeyihiin la qiray oo sharciyan la ansixiyay inta soo hadhay laftigeeda qayb aan ku leenahay maadaama dalka ka tirsannahay kontonkuna uu gaar noo yahay dhanka horumarka waxaa noo qabsoomay arrimo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin mashaariic fara badan oo la fuliyay oo hadhow haddii aad waqti isiiso aan kuu sharxi doono waxaa kale oo aan ku guulaysanay in miisaaniyadda deegaanka ay shacabka Soomaalidu yeeshaan oo sidii shalay jirtay meel cabdi ilay iyo kooxdii canaasirta la shaqeynaysay iyo kooxdii ciidamada kooban ee tuugta ahaa ee iyaguna la shaqeysanayay iyo kuwii TPLF saraakiisha ahaa waxaan lagu casuumay deegaamo kale qaadanayaan inayna noqon baan ka shaqeynay waxaan soo celinay dhul aad u ballaaran oo 100,000 hektaar gaaraya oo ahaa dhulkii shacabka Soomaaliyeed laga boobay oo u badnaa gobolka City iyo gobolka Shabeelle oo maanta qacan Soomaaliyeed lagu soo celiyay waxaan iyadoo aan ku guulaysanay in aan dooda Soomaalida Addis Ababa geyno oo aan noqono dad jira oo codkoodu uu maaragtay wax ku filan yahay oo siyaasadaha dhexda taasina ay noo soo goyso wax badan oo saamiye ugu horeyso ugu yaraan 7 laami oo heerka darajada koowaada oo aan weliga laga qaban deegaanka oo heer federaala iyo leerka 24 saacadooda oo ugu yaraan 30 magaalo oo yaryar hadda la gelinayo laakiin kuwa ugu horeeyay dhagax buur qabdahar iyo hadda ay haystaan 24 hour leed ay haystaan iyadoo advocacy badan laga galay waxyaalo fara badan noocaas ayaa runtii noo hirgelay dhanka horumarka waxaan jecelahay haddii aad fursad siiso inaan ka hadlo wixii noo qabsoomay waxaan ku horeynayaa dhinaca waxbarashada sanad iyo 8 bilood ayaan joognay sanad iyo 8 bilood 10 bilood ka mid ah waxaa mashquul lagu ahaa yeelidii dawladda iyo dib u habeyntii xisbiga
daadi maqashaa si waxaan baan kuu maqlaa israacso soo koodo maadsan sanadka iyo 8 bilood waxaa noo qabsoomay inaan dhisno 450 dugsi oo 50 ka mid ah yihiin dugsi sare 10 ka mid ah yihiin boarding iskuulaadka dadka masaakiinta loogu talagalay 3 macadyada farsamada gacanta ee jaamacadaha u dhigmo oo kale oo la sameeyay iyadoo qishkii iyo ardaydii oo naadara la joojiyay haddana la bilaabay waxbarasho TV ka baxaysa oo macalinka TV la yiraahdo taas oo iyaduna teeda kor u qaadaysa waxaa la dhisay waxaa socda dhismahoodu uu socdaa 11 hospital oo hore aan loo arag 3 ka mid ah cusub yihiin 3 ka mid ah yihiin upgrading kor loo qaadayo heerkooda iyo 5 ka mid oo iyaguna la balaarinayo 30 xarumo caafimaad 3 bangiyada dhiiga oo meel kala duwan laga sameeyay waa dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada waxaa kor loo qaaday shaqaalihii caafimaadka oo ilaa 5500 cusub lagu daray waxaa kaloo la kordhiyay lacagtii gunnada ahay la siin jiray shaqaalaha caafimaadka taasoo kor u qaaday waxaa la soo iibiyay 130 ambulaansi iyo 20 gawaari oo caafimaadka oo hore aan loo soo iibin ugu yaraan 10 sano u dambeysay aan la qaban waxaa la dhisay jid laamiye oo 24 kiiloomitir oo magaalooyinka Jigjiga dhagax buur goday iyo qabridaar ka socda iyo nooca dhagaxa la saaray cobblestone-ka loo yaqaano oo iyaguna laga sameeyay ilaa iyo 6 magaalo oo magaalooyina waxaa kaloo la sameeyay 100 kiiloomitir oo wadooyinka jayga ah ee isku xidha magaalooyinka kala duwan ee degmooyinka inahaasi waa xagga jidadka iyo waxa la xidhiidha waxbarashada iyo caafimaadka waxaa kaloo noo qabsoomay ilaa lacag gaaraysa 2 bilyan oo bir mashaariic u dhiganto oo dhinaca biyaha in laga fuliyay magaalooyinka Jigjiga iyo Goday iyo magaalooyin kale hore aan loo arag dhinaca kale dhismayaasha in guriga deegaankaas dhan oo baarlamaanka xafiis baarlamaan una lahayn hadda xafiis complex oo baarlamaan la dhisayo 11 gobol ee ku kooban yahay deegaanku in xafiisyadii maamulada ku shaqeyn lahaayeen ay socdaan 6 magaalo oo ka tirsan magaalooyinka waaweyn iyagana ay ka socdaan xafiisyadii loo dhisay dhammaan 10 gobol Jigjiga marka laga reebo ee deegaanku ka kooban yahay in laga dhisayo guriga wadareed 40 ilaa 50 guri oo badankooda ay dhamaadeen oo 10 zomba iyadoo oo waliba ilaa iyo 3,000 oo ciidanka gaarka oo cusub lagu daray ciidankii hore iyadoo miisaaniyadoodii kor loo qaaday la tayeeyay tababarkoodii kor loo qaaday iyadoo kala dhinaca security-gana la dhisay qayb wardoona oo tayale oo casri ah oo iyaduna aan rajeynayno mustaqbalka dhow inay qayb ka qaadan doonto sugidda ammaanka deegaanka marka guud ahaan markaan soo koobo deegaanku waa deegaanka ugu nabdoon dalka Itoobiya maanta xagga nabadgelyada xagga xorriyadda iyo dimuqraadiyadda waa deegaanka la oran karo tusaale weeyaan waa deegaan soo afjaray colaadii gudihiisa iyo tii jaarka ka dhaxaysay waa deegaan wada noolaashuhu ka hirgalay waa deegaan horumar aad loogu dirsan karo oo bilow waxa aan hadda sharxay ah uu ka hana qaaday weeyaan marka guud ahaan marka loo eego caqabadihii noor yaalay iyo xilligii koobnaa aan joognay waxaan aaminsanahay in wax badan ay qabsoomeen hagaag in muddo ayaa hadlaysay waanu eegi doonaa in uu deegaanku degan yahay oo cadaaladu ka jirto xorriyatul qowl ka jiro oo dimuqraadiyad ay ka jirto waa sa hadalka u dhigtay balse marka u horeysa waa maxay khilaafka xiriir idinka dhaxeeya adiga iyo xukuumadda Addis Ababa ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xiriirkiinu sawaase annaga xiriirka naga dhaxeeya waxa weeye xiriir ku salaysan dastuurka dalka iyo xiriirka isagu oo heer deegaan iyo heer federaal xiriir sharci ku salaysan weeye waxaa kaloo naga dhaxeeya xiriir xisbi ahaan maadaama hal xisbi aanu nahay hadda oo xisbiga barwaaqo aan ka wada tirsannahay marka xiriir aad u wanaagsan ayaa naga dhaxeeya iyo wada shaqeyn wanaagsan annaga iyo dowladda federaalka waa gartay bal xisbigan barwaaqo haddaanu isla jeexjeexno xisbigaanu waxa uu wiiqayaa bay leeyihiin dadka siyaasaddaada dhaliila mowqifka jaaliye ee ummadda Soomaaliyeed ee halkaa ku nool iyo inay isku tashaan wuu wiiqayaa xaqoodana wuu duudsiinayaa barwaaqana waa la yiraahdaa adigu xagee ka aragtay inuu barwaaqo yahay iyagay u taallaa cidda le wuxuu wiiqayaa shacabka Soomaaliyeed inay noo sheegaan waxa shacabka Soomaaliyeed hore u haysteen ee maanta uu ka wiiqay inay si cad ugu soo dhigaan iyaga u taallaa shacabka Soomaaliyeed 28 sano ee xukuumaddii ay ku amar ku taagnaysay TPLF ay dhisnayd dhac iyo barakac iyo dil iyo xaqraad iyo haba yaraatee wax ismaamul hoosaada oo ayna haysanin oo xiriir ciidamada laga maamulo ayaa soo marnay marka dimuqraadiyadda shalay aan maqnay shalay jirtay maanta maqan
federalismka shalay jiray ee maanta maqal cidda le wuxuu burburinayaa dimuqraadiyad iyo federalism baa laga rabaa inay keenaan dhibaatooyin macnaha caddaynteeda xisbiga intii anagu aan joognay sanad iyo barka ay 8 bilood ahayd waxaan ku sharxay wixii noo qabsamay dhinaca xorriyadda dhinaca diinta dhinaca Soomaalnimada waa gartay madaxweyne mar rabaan dib ugu noqono waxaad sharaxday waxaan doonaynaa inaan hore weela socono dabcan waxaa jira adigu waxaad aaminsan tahay xisbigan barwaaqo inuu u horseedayo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Soomaali galbeed horumar xaqoodana u soo dhicinayo ujeedada hadalkaagu ma sidaasa boqolkiiba boqolna tiraan marina codkaaga ma maqal boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay in weji cusub oo siyaasadda centerka aan qayb ka nahay Soomaali ahaan oo shalay nalaga takooro inuu noo bilaabayaan aaminsanahay daawadayaashaan u daynayna ayagu ha falanqeeyaan waa tixgelinaa ra'yigaaga haddii aanu eegno arrimaha ugu muhiimsan ee dhibaatadu ay ka taagan tahay waxaa ka mid ah dib u heshiisiinta dhibaatadii iyo tacadiyadii dhacday oo aad si fiican uga soo sheekaysay ummadduna ay ka dharagsan tahay sidii looga gudbi lahaa oo loo heli lahaa wixii dhacayna aan loo iloobinin dadkii dhibaatadu ay gaartay xaqooda ay u heli lahaayeen si cadaalad loo helo maxaa arrintaas kaaga qabsoomay maxaase hortaagan sidaad la socoto tacadiyada ka dhacay deegaanku aad bay u ballaadhnaayeen systematic bay ahaayeen waqti dheer socday wax hal sano iyo badh iyo 2 sano iyo lagu soo afjari kara maaha laakiin dhinaca documentationka dhinaca victimskii dadkii ahaa in la caawiyo ee wax soo gaareen dhinaca in politically wixii dhacay inuu khalad ahaa la sheego xukuumaddu dadaal badan ka muujisay waxa ugu dambeeyay in dadkii jaloogadan ku xidhnaa hadda loo sameeyay urur iyo foundation dhaqaalahan lagu caawiyay xafiis loo furay dad far badan oo u baahnaa caafimaad in loo diray kuwa badan oo u baahnaa nolol in loo abuuray marka bilow fiican baa jira laakiin halkii aan rabay weli ma aan gaarsiin waa gartay dhibaatadaasu inta ay socotay aad ka soo sheekaysay waxaa dadaal dheer ku jiray jamhadda xoreynta Soomaali galbeed waxaad si fiican uga warqabtaa wiilashii raamaha lahaa ee hawdka ku jiray gabdhihii dabarucleynayay ee habeen iyo maalin la garab taagnaa hiilka iyo hooga ayagoo diiday marnaba inay dhinacooda dhulka la dhigo oo ay qaataan waxa u qalmo wax ka yar waa say hadalka u dhigeen ayna diideen inay gumaysto ay raalli ka noqdaan jamhaddaas iyo adigu iskuma fiicnidiin baa la leeyahay waa maxay dhibaatadeedin dhex taalla adiga iyo jamhadda xoreynta Soomaali galbeed jabhad la yiraahdo xoreynta Soomaali galbeed oo isdiidanahay ma jirto haba yaraatee Soomaali galbeed wax sheeganaya hadaan heli lahayn waan heshiin lahayn maan qabaa waa gartay marka waxa leedahay okay si kale aan kuugu dhigo jamhaddu waxay ku biirtay waxay noqotay xisbi waa la tagay waa la heshiiyey heshiiskaas adigu waa joogtay wixii lagu heshiiyey maxay ahaayeen heshiiska anagu jabhadda yaa Soomaali galbeed maana la heshiin Cabdi Xafid get your facts right jabhadda la heshiiyey magaceeda ii sheeg kadib baan kaga jawaabi waa gartay jamhadda iyo dawladda dhexe Itoobiya way wada hadleen ma jamhadda OLNF jabhadda OLNF marka spell out maxaan isbeel garayaa jabhadda ii sheegtay maxaa la yiraahdaa magaceeda waxay ila tahay jamhaddaas in magaceeda laga dharagsan yahay inaan waqti ku lumiyo ma rabo waxa adigu ogtahay anaan ogahay jamhadda iyo dawladda dhexe way wada hadleen waxa la yiraahdo ha ahaatee wada hadalkiina waa la heshiiyey xisbi ayay noqdeen xisbigaasu adiga ayuu kursigaaga damac kaga jira oo looltanin ka dhaxeeya taas ayaana keenaysa ayaa la leeyahay in aad hadallo aan u qalmin aad hawada u soo mariso saxaafadda aad ka tiraahdid dhiig bay daadsheen iyo dhibaatay keeneen maxaa arrintaa ka jira jabhadda aad ka hadlaysaa waxaa la yidhahdaa jabhadda Ogaden National Liberation Front jabhadda la yidhaahdo WSLF waxay ahayd marxalad ka mid ah marxaladihii halganka ee shacabkanagu uu soo maray arrinteedu waxay dhamaatay horaantii 80meedii marka jabhadda hadda aan ka hadlayno si shacabka maadaama kulli ayna xogta wada haynin qaar badan oo sida aad adigu sheegtay fahmaya jira waxaan ka hadlayno laakiin shacab Soomaaliyeed oo ballaaran baad dhageysanaya jabhadda hadda aad ka hadlaysaa waa jabhadda Ogaden National Liberation Front oo NLF la yiraahdo waa sax weeye jabhaddaas Soomaali galbeed lama yidhaa waxyaalahan isku haysanay ka mid tahay magaca inay bedelaan oo magac Soomaaliyeed ay qaataan oo magaca qabiilka ay ka tagaan oo ay Soomaaliya oo dhan metelaan marka jabhaddaasi heshiis bay ku gashay Asmara saddex qodob ka koobnaa kow in barnaamijkeeda siyaasadeed ay ku maqnayd maadaama hadda fursad
ay si nabadgelyo ah ku fulin karto waddanka ka bilowday inay yimaadaan oo xisbi siyaasi noqdaan baa kow ahaa laba wuxuu ahaa in la maareeyo ciidamadii duurka ka joogay intii ay ku jireen halganka hubaysan saddexna waxay ahayd in iyaga iyo xukuumaddu ay dhistaan guddi isku dhafa oo ka shaqeeya qaabkii siyaasadda loogu tartami lahaa ama la isaga kaashan lahaa xukuumadda deegaanka Soomaalidu way fulisay wixii qaybteeda ahaa 500 milyan lacag ka badan baan ku bixinay soo dhaweyntoodii soo dejintoodii maareyntii ciidankooda marxaladii dejinta iyo soo dhaweyntu way dhamaatay marxaladii tartanka siyaasadda noo bilowday waxyaalaha la iswadaarsanaya hadalkan wuxuu ka mid yahay uun qaybta tartanka oo iyana ay xukuumadda ku dhaliilaan anna iyaga aan ku dhaliilo hadal xanaaf la iyo xanaaf dhibaatii toona ma jiro cid walba barnaamijkeedii iyo fikirkeedii bay iibinaysaa marka ay dhibsadaan ma aha aragtida aan ka qabno iyaga aan u soo marino baraha u soo marino media ma jirtaa inaad tiri jamhaddu dhiig bay daarisoo dambi bay gashay hadda ka hor ma modern hadalka maadan oran adigu waa ka gudbaynaa waa gartay jamhaddu waxa ay doonaysaa maadaama ay xisbi noqotay in ay jagada kursiga qabato oo kula tartanto ma ogoshahay si xor iyo xalaal in lagula tartamo oo cagajuglayn iyo dad la xiro iyo hanjabaad aysan ka imaanin ciidamadaada adiga ku gaarka ah askarta meesha ka shaqeysa ma oo kaliya inaan ogolahay in si xoran lagu tartamo actually we are going extra mile in aan xitaa in wixii sharcigu dhigay wax ka balaaran gallo oo odayaasha deegaanka ay makhraati ka noqdaan guddiga doorashooyinka ee dawladda kolka qaarkood lagu dhaleeceeyo la yiraahdo xor maaha kaliya maaha odayaashu deegaanku inay noqdaan auxiliary capacity ama xubno kale oo iyagu goobjoog ka noqda tartan doorashaad u dhacayo ayaan diyaar u nahay waxaan u ballan qaadaynaa in tartan xor iyo xalaal ah deegaanka loogu ogol yahay oo nalaf waxaan ku kalsoonahay in doorashada laga adkaan doono waa gartay waqtigeeda iyo maalinteeda ay leedahay dabcan inaan ka hor dhacno dooni mayno waa ra'yigaaga waxaad ka hadashay waxyaalaad ka hadashay waxaa ka mid ahaa xorriyatul qowl iyo dimuqraadiyad inay jirto maxaa ka jira rag wariyaal ah oo ka howlgelayay deegaamadaas inay maanta caawa xiran yihiin oo xabsi ay ku jiraan maxaa ka jira arrinta wariye xiran anigu ma ogi haddaad ogtahay magaca ii sheeg si aan uga jawaabo waa gartay wariyaha magaciisa intaana kuugu soo noqonin wariyaasha xiran magacooda intaana kuugu soo noqonin madaxii hore ee brotocoolka cabdulqaadir muxuu ku xiran yahay xaq ma loo maray xiritaankiisase waa arrin hay'adaha sharciga ay gacanta ku hayaan oo baaritaan ku socdo waxaa loo maray sifo sharci ah hadda laakiin arrin sharciga lagu hayo maadaama ay tahay inaan ka hor dhaco ma rabo waxaa lagu xiray wuxuu ahaa iyaga oo qawaaniintii iyo nidaamkii dowladnimada garab maray marka faahfaahinteedana hay'adaha cadaaladda u taala waa gartay waxyaalaha uu hareer maray ood ogtahay maxaa ka mid ah waa waxyaalaha aan ku leeyahay hadda anigu ahaantay maadaama arrintii arrin maxkamaddu gacanta ay ku haysan tahay anigii oo madaxweynihii deegaanka haddaan dembigiisii hadda halka ka sheego isaga laftiisa cadaaladdu uu helaya inay dhibaato ku noqotaa laga yaaba oo bias ay abuurto waxaan markaa jeclan lahaa in maxkamadda iyo hay'adaha sharcigu ay arrintaas ay iyagu ay qeexaan laakiin guud ahaan inuu sharciga baal maray oo kala dambeyntii iyo kala amar qaadashadii uu diiday qalalaase deegaanka lala rabin uu qayb ka ahaa intaasaan guud ahaan kuu sheegi karaa si dulmara qalalaasahaas waa waxaad mararka qaarkood ku tilmaantay ayaa la leeyahay afgembi ujeedada masaasa qalalaasa siyaasadeed baan idhaahno hadda qalalaaso siyaasadeed noo yaro qiix marka hadduusan afgembi aad sheegaysa ahayn qalalaaso siyaasadeed wuu qeexan yahay waa qalalaaso siyaasadeed qalalaaso siyaasadeed wuxuu noqon karaa baarlamaanka oo la hor istaago oo geli waaye shaqadooda qabsan waaye wuxuu noqon karaa qof siyaasi oo la xiro wuxuu noqon karaa dad mudaharaadyo sameeya wuxuu noqon karaa dad rabshado geysta nooca uu yahay noo qiix adigu intaaba iyo waxyaalo dheeraad buu noqon karaa waa saas sheegtay laakiin aan waxaan ku daynayaa qalalaasa siyaasadeed hadda waa hagaag wariyayaasha xiran waxaa ka mid ah mahdi xasan nin la yidhaahdo gafdiid khadar colaad maxaa ka jira xogtaan hayo khadar colaad oo aniga ahaan jiray advisorkayga ahaa ma xidhna bannaan ku joogaa lamana xidhin totally waa been gafdiid yarka la yidhaah oo golaha dhexe ONLF wariye ma aha waa siyaasi golaha dhexe ee jabhadda ONLF
wuxuu ku dhawaaqay fal dembiyeed dil in lagula kaco madaxweynaha deegaanka oo aniga ah toddobaad weliba aniga walaalkii la tooriyey oo tuhun ah in dad isaga ku dhowey ay tooriyeen ayuu arrintaa ku dhawaaqay waa la xidhay laakiin hadda waa la sii daayay mahdi xasan mahdi xasan la ma xidhna total ma xidhna laakiin ma xidhna marka taas waxay muujinaysaa saddexdaa magaceeda haysaba inaan xidhnayn adaa xaqiijin karo hadhow la soo hadli karaa waagaag gafdiid xarigiisa tuhun waxaan ahayn miyaa lagu hayaa mise wax cad baad u haysaan xarigiisa waxaa lagu hayaa wax cad oo audio visual ah wax cad oo audio visual ah mar kaliya ma ahayn muddo dheer ayaa wuxuu ka shaqaynayay waxyaalo baalmarsan qawaaniintii iyo sharcigii ay soo rogtay dowladda federaalku ee ah isticmaalka baraha bulshada oo si غير mas-uulnimo ah kicinta bulshada iska horkamida diimaha abaabulka in qabiil ku duulo in dadka diimaha kala haysta ee deegaanka jooga la laayo siyaabo kacdoon oo noocaas ah ayuu ka shaqaynayay oo xusuusinaysa xansuuqii ka dhacay jijiga August 4 marka in badan baa loo dulqaatay laakiin aakhirkii markii ay meel adag gaadhay hay'adaha nabadgelyadu talaabada qabsadeen kadibna anagoo ka duulayna image-ka deegaanka hadda banaanku jooga walow cadaymo ku filan in maxkamad lagu geeyo oo lagu xukumo ay yeelaan hagaag cadaalad inuu heli doono oo loo qaban doono garyaqaano isdifaaci doono ma suurto gelinaysaan oo xaqiisa uu heli karo si uu maaragtay arrinta cadaaladda ay u suurto gasho horta iminka banaanku joogaa waan ku idhiba banaankuba joogaa lawyer buu qabsan karaa television baa laga soo deyn karaa haddii la rabo maxkamadda hadduu dalbado ehelkii iyo qaraabadii iman karta waxaa iman kara hadduu u baahdo cadaan niman hadduu u baahdo inuu yeedho oo maraykanka ka socdo way soo geli karaan wax haba yaraatee loo diidan yahay ma jirto laakiin hadda maba xidhna noomana qorshaysna in arrintii loo sii raaco oo xabsi lagu celiyo hagaag waa gartay waxaan kaloo jecelahay inaan wax kaa weydiiyo waxaad ka soo hadashay hadaayata waxqabadkaagii iyo waxaad idiin qabsoomay inta aanan fursad kuu siin waxa kuu qabsoomi waayey iyo sababto caawa jigjigaad fadhidaa waxaana ka jira biyo la-aan baahsan oo dhibaatada ugu weyn dadka haysata ay ka mid tahay biyuhuna waa aasaaska nolosha ama wax walboo nool maxay ku dhacday jigjiga inay caawa biyo la-aan tahay horena aysan u ahaan jirin jigjiga biyo la-aan way ahaan jirtay hadda ka hor waan la sheegi karaynin haddana waa la sheegayaa intaasaa udhaxaysa waxay jigjiga biyo la-aan u tahay maadaama mashaariic 5 bilyan oo bir ku dhawaada oo xilliga cabdiile in la fuliyo ahayd la cunay oo haba yaraatee meel alla meel ay maraan aan la haynin intii annagu aanu nimidna mashaariicdii aanu bilownay weli ayna dhammaanin laakiin aan rajaynaa hadda inay dhammaadaan laakiin dhanka biyaha coverageka biyaha magaaladu aad buu fiican yahay population fara badan baa kusoo jabay oo yimid magaalada intii isbedel kadib ah biyo fiican baa ka jira magaalada taa laftigeedu waxyaalaha social media snapshotka la soo gelinaya xaqiiqada dhabta ee magaalada ma muujinayo waxaan jeclaan lahaa in wasiirka biyaha aad wareysato si uu kuu siiyo detail information oo ku saabsan guri kasta inta biyo laga cabo iyo sida xaaladdu tahay laakiin biyo la-aanta waxaa ugu canjijiga 10 sano oo telefishinka laga soo deynayay in biyo ka socdaan oon la hadli karaynin oo lacagteedii la cunayay oo haba yaraatee wax water infrastructure laga sameeyey uuna meesha ka jirin haba yaraatee waa gartay waxaad ka hadashay waxyaalo fara badan oo idiin qabsoomay waxaad noo sheegtaa 2 ama 3 mashruuc oo intaan iminka hadda xilka adigu haysay aad fulisay oo la taaban karo gaar ahaan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha midaal ahaan markaan barnaamijkan diyaarinaynay muddo dheer aan ku guda jirnay dadku waxay noo sheegeen jidadku inay burbursan yihiin aysan maaragtay lahayn wax dayactir ah ama mashruuc la geliyey aysan jirinin maxaa arrintaa ka jira si aan u ixtiraamno dadka daawanaya waxaan kuu sheegay mashaariicda sanadka la fuliyo waan kuu sheegay 450 dugsi baan ku yidhi 30 health center baan ku yidhi wadooyinku ma burbursan yihiin mudane kulli way dhisan yihiin waxaan ku ballan qaadayaa in haddii aad diyaar tahay aan kuu soo dirno sawiradoodii audio visual oo sii deyso maadaama documentary hadda laga diyaariyey jidadku way burbursan yihiin sawirada dowladdu ay dhamayso sawirada haddaad ku kalsoonay adu nooy markaan ku casuumayna aad aragtid iyagoo live iskaa u imaadyaa la yidhaa waa gartay waa ka qancay arrintaas waxaan doonaya inaan ku idhaahdo laakiin waxaa jira dalku waddanka laguma hogaamiyo baahi baa jirta laguma hogaamiyo dalkani baahi baa ka jiri doonta maanta ka jiri 5 sano kadib ka jiri 50 sano ka jiri dalalka aad joogtay horumaray ingiriisku uga horeeyo infrastructure-kiisu ilaa hadda laga hadlaa isagoo dal horumaraya iska daa Afrika dal ka mida gaar ahaan dal fiqiir oo Ethiopia ka sii tirsan marka
protest iyo baahi baa jirta laguma qeexi karo tayada waxqabasho ee dawladdu waxa lagu la xisaabtami karaa resource-gii ay haysay dhaqaalihii ay haysay iyo qorshayaashii u yaalay maxaa uga fulay matalan waxa laga yaabaa dalkan inuu u baahan yahay $50 bilyan inuu u baahan yahay laga yaabaa wax laga qabto laakiin lacagtan haynaa ay tahay laga yaabaa $500 milyan $500 milyan aan hayno maxaan ku qabanay baahida bulshada maxaan ka buuxin baa la oranayaa mooyee jijiga maxay wadooyin laami u yeelan weyday maxay u yeelan weyday street lighting maxay underground tan u yeelan lama weydiin karo marka taaliftigeedu waxa in ay noqotaa wax la xiriira maxaa ku jaban in la idin weydiiyo oo uga jawaabtaan xataa haddii aan awoodiina ahayn oo dadka qancsan maxaa udiisan in la weydiiyo why not inaad weydiiso xaq baad u leedahay laakiin de waaqici bayn ahayn waa hadda macnaha anoo ku yiraahdo magaalada xamar maxay u leekaan weyday magaalada New York oo kale waa waxaan ka hadlay waxa weeye su'aaluhu inay noqdaan realistic su'aalo inay noqdaan baa muhiim ah laakiin weydiintu dhib ma leh laakiin inay noqoto wax waaqici ah jira laakiin jijiga isbedel badan ka muuqda wax badan baa laga qabtay mashaariic fara badan baa socda waxa ka socda hadda ilaa iyo 10 kilomitir oo laamiya oo Shiina ay dhisayaan oo markay dhamaadaan aan filayno in magaalada muuqaalkeeda ay bedelayaan waxa ka socda ilaa iyo 22 mashruuc oo cobblestones ka socda magaalada mashaariic fara badan ka socda waa hagaag waxaan weli ku guda jirnaa awood qaybsiga iyo inaan mawduuc kale la xiriiro oo ay isku lamaanan yihiin hoos aan ugu degno oo musuqmaasuqa waxa la yiraahdo bal intaan musuqmaasuqa u gelinin waxaan iigaga warantaa dad waxa jira barakacayaal ah oo xerooyin ku jira dadku waxay qaarkood leeyihiin waxba looma qabanin oo dawladda gacanteedu ma gaarinin ma tabardarra idin geysay mise inaad wax ka qabatiin baanan doonayn sida lagu eedeynayo mise gacantiina way gaadho wuxuun baad qabateen wax badan baan ka qabaday barakacayaasha ilaa iyo hadda taageerada la siiyo aad bay u badan tahay baahida barakacayaasha waxay u kala baxdaa wax daruuri oo life saving intervention la yiraahdo oo ah in caafimaadkooda waxbarashadooda biyahooda cuntadooda laga warhayo iyo in la sameeyo wax la yiraahdo durable solution oo ah in xal waara loo helo halka waara waxa weeye in saddex qaybood loo qaado ama la raro ama meeshay joogaan nolol loogu sameeyo oo maaragtay durable solution loo sameeyo qaybta dhiman waa qaybtan in xal waara loo helo waxay ku xiran tahay arintaasina in dhul ay degaan la soo helo in miisaaniyad balaaran oo lagu raro lagu soo helo in hay'adihii caalamiga ah iska kaashadaan adduunka anu waxaan ka shaqeyn jiray hay'adaha muxuu ahaa humanitarianka meel sanad iyo badh dad barakacayaala oo loo yimid inta lagu oo waliba oo ilaa iyo 500 ama 600 inta loo yimid xal waara lagu gaadhay intaan shaqeynay maan arag marka saa daraadeed waa degdeg baan isleeyahay waxa lama qabantu wax badan baa la qabtay indicatorska humanitarian indicatorskooduna ama xaaladooda nololeedna dadka caadiga ee kale aad uga sii liidato marka laga tago inay meelaha ay ku nool yihiin ay ku urursan yihiin oo saxadooda ayna fiicnayn marka baahiyo badan baa ka jira deegaanka wax badan oo loo qabtay wax badan way dhiman yihiin waa hagaag waxaan kaloo jeclaynaa wax kaa weydiiyo waxaa jira dad ka cabanaya deegaamada qaarkood in aan maaragtay awood qaybsigu uusan gaarinin oo aad ku soo koobtay waasay hadalka u dhigeen adiga iyo dad kugu deegaana ama ku dhow oo kaliya laakiin gobolada qaarkood aan la gaarsiinin awoodda dawladda iyo dhaqaalahaba maxaad eedeyntaa ugaga jawaabaysaa waxaan anu aaminsanahay in xukuumaddan ahayd xukuumaddii ugu ballaarneyd ee shacabka deegaanka Soomaaliyeed gaadhay waxaan aaminsanahay dagaalka nagu socda badankiisu inuu la xiriiro maxaa loo qaybiyay resource-gii deegaanka dadka Soomaaliyeed loo gaarsiiyay maxaa awoodii loo balaariyay in fact anu dhaleecaynta aan maqlaa taa ma aha dhaleecaynta aan maqnaa waxa weeye dhaleecayn iga soo gaadha kuwa aad sheegayso laga yaabo inaad ii aanaynayso ay leeyihiin dadkii kale ay wax siiyaa dadkii isaga u dhawaa wax ma siiyo taasaan maqli jiray tan caawa igu horeysa aad sheegayso waa hagaag haddaad sheegto aan jeclaan lahaa aaga aad leedahay waa laga qadiyay dawladda waa hagaag musuqmaasuqan waxay rabaan inaan dhex joogo dad waxaa jira magaalooyinka qaarkood dabcan degan oo ayagu cabanaya laakiin waan u imaanayaa waxaan jeclahay inaan sidoo kale aan hoosta ka xariiqno dad badan oo nala soo xiriiray gaar ahaan markii aanu soo daynay video annagu aan kaa codsanay inaad noo soo duubtid oo aanu ku niri si aan dadka u wacyigelino videoga noo soo duubaan kaaga mahadcelinayo dad fara badan oo nala soo xiriiray ayaa waxay sheegayaan oo gudaha jooga caawa jigjiga iyo meelo kale dunida daafaheeda ah musuqmaasuqu inuu marayo meeshii abid ugu sarreysay waase hadalka u dhigeen intaad adigu xilka haysay
aadna aad samaynaysid iyo inaad dadka u hilisid qaarkood maxaad ka leedahay arrimaha lagu eedeynayo mudane madaxweyne badanka dadka arrimaha eedaa soo jeedinaya waxay u badan yihiin dadkii cabdi ilay xukuumaddiis ka faa'iiday la shaqaysan jiray oo wixii ay u barteen waayey oo lacagtii iyo wixii keligood ku koobnaa uu ka kala baahay ayay u badan yihiin waa wax eedayn iska joogto oo naqaano weeyaan waxaa la yaab leh dadka maanta ka hadlaya musuq maasuq waa dad macnaha musuq kelmadda la yidhaah xitaa bulshada dhexdeeda xilli aan la soo qaadi karin noolaa weeyaan waxaa weeye cabdi madaxweynihii hore cabdi ilay iyo familigiisa iyo reerihiisu sidii boqor bokaasa iyo sidii fadna marcos iyo dal ay lahaayeen oo lacagtiisa raranayeen oo la og yahay oo magaalada guryaha ku leeyihiin hantida la qaadan yihiin dadkii soo joogay ee fadhiyey ee daawanayay way dadka maanta ka hadlaya musuqii halkii uu ka fog yahay waxaa markaa caddaynaa inaan musuqii la dagaalanay mashaariicda sanadkii iyo barhka aan qabannay annagu aan ku qabannay miisaaniyadii deegaanka 10kii sane u dimaysay lama qaban lacag waddanka shiinaha ka soo amaahanay iyo tu imaaraadkuna siiyeyna ma jirto waa lacagtii deegaanka uun marka waa la dagaalamay musuqii monopoligii dhaqaalaha ee gacanta ugu jiray madaxdii deegaanka waan baabi'inay oo hadda ka hor jirtay cagad biyo soo gashay magaalada oo cabdi ilay tiimkiisu ayna lahayn ma jirin annagu taa hadda milyan ganacsigu waa xor waxaa kale oo taa caddayn u ah inaan ilaa heer degmo ilaa iyo heer kelil heer deegaan ugu yaraan mas-uuliyiin gaaraya 30 ka badan oo heer degmo iyo heer deegaanba ah xilalkii looga qaaday qaarna loo xidhay musuqiya wax la xidhiidha istabamarin la xidhiidha marka waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay inaan meel aad iyo aad u wanaagsan aan gaarsiinay la dagaalankii musuqii waxaana caddayn u ah adeega bulshada aan siino hadda iyo mashaariicda aan fulinay tayadooda iyo tiradooda waa gartay waxaa jirtay dhowaan dad saraakiil qaarkood ay ahaayeen ama jagooyin hayay oo jagooyinka laga qaadayna lagu bedelay dad kale oo adiga isku hayb aad tihiin la sheegaya arrintaa maxaa ka jira inaad ii faahfaahisaan jeclaan lahaa maalin walba deegaanka waxbaa la bedelaa oo shaqooyinka jira awgood iyadoo la eegayo kolba qiimaynta la sameynayo la xidhiidha shaqo wanaagga isbedelaa la sameeyaa marka haddii aniga kuwa la ii aaneynaya ay jiraan inaad ii sheegto si aan uga jawaabo kuwa aniga la ii aaneynaya kuwa yihiin laftigeeda lama garan karo waayo soomaalida waad garanaysaa qabaa'ilkeedu kol meel bay taagan tahay marka macnaha ma kuwa gobol ahaan la ii aaneynaya ma kuwa qabiil ahaan haddii qabiilta halkee weeye bal waad garanaysaa soomaalide marka inaad saa u kala faahfaahisaa ficnaan lahayd laakiin annagu performance iyo tashi waxaan keliya sameeyana ma jiro waxaa jira guddi iyo xisbi iyo nidaam iyo dowlad baa jirta taas maan wax ku maamulaa hadday noqoto aanayna waxaan aaminsanahay dadku inta badan waxay aaminsan yihiin meelaha aan ku dhashay oo kaliyo inaynan hadda ka hor oo aynan xitaa deegaanka xitaa golaha cabinetka xitaa wax ku lahayn kii ugu horreeya hadda soo galay baan filayaa marka inaad ii faahfaahisaa ficnaan lahaa si aan uga jawaabo oo aanan speculation aan u samayn waxaad noo qiixdaa waxaan doonayaa inaan adiga fursadda marka hore ku siiye dhowrkii qof oo ugu dambeeya xilka ka qaaday 3 ilaa 5 bilood oo u dambeysay ay ahaayeen waxaa ugu dambeeyay hogaankii nabadgelyada xilka laga qaaday maxaa uga qaaday waxaa looga qaaday isagoo oo gudan waayay waajibaadkii loo igmaday kana doorbiday inuu maaragtay ku lug yeesho hawlo lid ku ah shaqadii loo diray nabadgelyada maxaa ka mid ah hawlaha waxaa ka mid ahaa muxuu ahaaye u kala eexasho qabaa'ilka deegaanka ee ahayd inuu cadaalad u sameeyo waxaa ka mid ah musuq maasuq baahsan waxaa ka mid ah xafiiskii oo jahwareeray oo istaraatiijiyad degan oo lagu maamulo ayna jirin iyo guud ahaan shaqooyinkii nabadgelyada oo hoos u dhacay wagaag shakhsiga lagu bedelay maxaa kusoo xulatay shakhsiga lagu bedelay waxaan kusoo xushay aqoon iyo karti iyo sumcad shacabka Soomaaliyeed shanta muxuu ahaayay Soomaaliyeed ku nool ay ku yaqaanaan waa nin doctor of PhD haysta oo public health iyo conflict resolution xalinta khilaafaadka intaba ku takhasusay weeye deegaanka aqoon u lahaa ka shaqayn jiray ilaa iyo heer la taliya madaxweyne ahaan jiray akhlaaq wanaagsan iyo weliba strategic thinking oo ah qof aan filayno in sectorka security-ga ama nabadgelyada oo u baahan in si ka duwan sidii hore loo maamulo maadaama hadda ka hor uu ahaa un meel lagula dagaalamo jabhadda ONLF iyo ururada markaa loo arkayay inay mucaaradka yihiin
hadda laakiin arrintaas ayna jirin sectorkan u baahan yahay in transformation uu sameeyo cid qaban karto capacity le markaan raadinaynay qof aan u aragnay inuu qaban karo weeyaan wagaag shanta jago ugu sarreysa dowladdaada markaad eegtid afarta adiga marka lagaa reebo afarta kale nimanka haya mas-uuliyiinta haya dadka qaar waxay leeyihiin jagooyinkii oo dhan Mustafa waxa uu ku taxay dad asaga ay isku jifa yihiin ma waxaa leedahay arrintaas wax jira maaha oo musuq maaha waa been cad weeyaa shanta ugu sarreysa maan eegna magacyadooda isla eegnaba go ahead waxa weeye madaxweynaha deegaanka waa aniga afhayeenka baarlamaanku waa nin gobolka ka soo jeeda daawa mooyaali xaggaa ka soo jeeda weeye madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ka soo jeedaa gobolka city shinile yuu ka soo jeedaa guddoomiyaha maxkamadda sare wuxuu ka soo jeedaa togwa jaale iyo agaas ka soo jeedaa auditor generalku wuxuu ka soo jeedaa jigjiga madaxa xarunta dhexe ee xisbiga wuxuu ka soo jeedaa gobolka liibaan shan ka sarreysa oo kale oo aan ogahay ma jirto wagaag daawadayaasheena su-aal ay qabeen bay ahayd ayaga ayaan u daynaynaa meeshay ka keenayna ayagaa la aadi doona kolley waa ku mahadsan tahay weli xoogaa yar waxaan musuq maasuqa la yara joogo waxaa jirtay haddaan xusuustaydu aysan khaldanayn ay jirtay meel laga dhisayay isbitaal dhiigga lagu kaydiyo oo aad tiri isbitaalkii hawshiisii waa la wadaa wasiirkaaga caafimaadkuna uu yidhi arrintaa waxba kama jiraan oo projectkaasu ma bilaabanin labadiina yaa saxsan haddii hadalka sida loo dhigay ay sax tahay isbitaal maahayne wuxuu ahaa bangiga blood banki dhiigga buu ahaa wuxuu ka socdaa magaalada fiiq buu ka socdaa hadda wuu gabagabooday 80% u dhammaaday in la qalabeeyo ayaa harsan marka iyada isbitaalku wuu bilowday 2 bilood min lahaa waxay ahayd arrin la xidhiidhay warbixintii la soo gudbinayay markaas oo wuu bilowday ma bilaabin wasaaradii anagu aan nidib u ahaa isla markiiba waan marka wasiirkiina wuxuu yidhi mashruucu ma bilaaban adna waxaad tiri meel fiican buu marayaa adiga wasiirkaagu miinaan isla soconin oo iska warqabinin aniga wasiirka noo bilaadan baan nahay iska daa annaga adduunka meel walba la khaldama miscommunication ku dhaca waa normal there's nothing unique about it waa wax markiiba meeshii iyadoo la fadhiyo la hadal hilmaan kuma jiraa la yidhi mashruucii wuu bilowday oo dhulkii waa lala wareegay qofkii qandaraas lahaa iyo ma bilaabin baa la yidhi mashruuca lacagtiisa lama cunin isla wiig baa lagu bilaabay maanta mashruuci waa gabagabo mashruuc inuu gabagabo yahay waa wax wanaagsan oo malihin gabagabo ma ahan laakiin waxa aan hoosta ka xariiqayaa miscommunication waa dhacayaas laakiin miscommunicationka amase hadalka in maaragtay isdaba maro way dhici kartaa bini aadan baa leeyahay kuma diijani hilmaanku waa dhici karaa haddaad bankigii dhiigga hilmaamaysaan inuu bilowday iyo in kale maxaad kaloo xasuusanaysaan baad isleedahay maxaa kaloo ilownay adaan ku weydiinayaa waxaan ka hadlaynay mashaariic gaaraya 500 600 mashruuc ka hadlaynay waxaan ka wadaa oo la jeedaa madaxweyne waxaan oo la jeedaa haddii taas aad ilowdeen oo bankigii dhiigga dadka lagu badbaadinaya aad ilowdeen ma laga yaabaa Britain aad biyaha ilowdaan ma laga yaabaa Britain aad korontada ilowdaan Britain ma laga yaabaa inaad amniga ilowdaan cabdi xaafid waxyaalo fara badan oo dadka inaga sugayaan baa muhiim ah oo inaan ka jawaabno u baahan bankiga lama iloobin adduunka typo baa jira miscommunication baa jira wasiirkii xogtii uu ka helay magaalada wuxuu ahaa mashruucii waa la bilaabay ninkii qandaraas lahaa mashruucii wuu bilaabay tii buu iisoo gudbiyeen ku hadlay gobolkii baan ka sheegaraynay maya ninkii wuu yimid meeshii laakiin weli ma bilaabin baa la yidhi isla goobtii la fadhiyay baa lagu saxay it is absolutely wax laga hadlo oo weyn haba yaraatee maaha waa wax isla halkii lagu saxay weeyaan totally waa hagaag goorma ayaa mashruucaas marka la soo gabagabeynaya maadaama 80% ee wadda dhammaalisaa tiri wuba dhamaadaan ku leeyahay hadda waxa hadda u baahato waxa lagu soo dirayaa halkuu marayo iyo design-kiisa halkuu marayo kulli lagu soo dirayaa hadda waxaa noo dhiman in shaqadii adeegii uu bilaabo waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd 8 bilood ka hor hawshan u dhacday si fiican baa la socdaa baarlamaanka deegaanka xaaladiisa iyo suu u shaqeeya nooga waran waa maxayse khilaafka idin dhexeeya adiga ayaga anuu khilaaf anagu baarlamaan noo dhexeeya ma jiraan haba yaraatee baarlamaanku hawshiisa wuu qabsadaa hawlihiisa wuu fushadaa maalin walba ilaa iyo inta haddaan ogahay baarlamaanku kolaan isqabsanay ma jirto shaqadiisa sidii hore ee waagii cabdi ilay uu joogay si ka duwan buu u qabsadaa awood qaybis baa la sameeyey guddiyo joogto ah jira mashaariicda ay soo eegaan xukuumadda la xisaabtamaan markaan warbixinta geynaan ugu qabsadaan arrinta hadda aad ka hadlaysay blood bankiga markaan reportka akhriyay iyagaa saxay
ويدي مدحوينه intaana waa runta waa sheegtay taana halkaas anagu waxaan ka soo jeedaa gobolka halka lama bilaabin bal hubso waan feedback aan dhageysanay waan uga jawaabnay haba yaraatee wax khilaaf oo noo dhaxeeya oo anagu hay ma jiro وهجاج waxaan jeclahay inaan kula wadaago nin la yiraahdo Irshaad Maxamed Doolaal oo muddo dhowr bilood ku xirnaa magaalada Jigjiga oo adiga si toos ah u sheegay inaad adigu ka dambeysay ciidamada aad leedahay afduubeen ninka ka horeeyay ciidamadii dadku afduubi jiray oo kale waa afduubeen oo lagu xiray Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa maxaa ka jira ninka arintiis adiguna aad amartay waa soo hadalka u dhigay dadka waa la xiri karaa dawladda dadku way xiri kartaa meelaan dadka lagu xiray ma jirto adduunka maxaa lagu xiray ma sharci baa lagu xiray mise laguma xirin tacaddi baa loo geystay mise looma geysan baa la isweydiinayaa hadday noqoto qof kastoo la xiro oo waddanka jooga maxaa loo xiray dee dawladda wax xirin adduunka xagee ku aragtay xiritaanku mushkilada ma ahan xiritaanku qofka wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay iyo xuquuq iyo in sharciga loo maro maxaa lagu soo xiray adigu iminka mariyo lama xirinin oo lama xabsi lama geynin waxaad leedahay dadka waa la xiraa waxaad indicate garaynaysaa inaad wax ka ogtahay eedaynta tooska adiga uu ku soo jeedinayo oo oranaysa madaxweyne Mustafa baa ka dambeeyay xiritaankayga dambina ma leeyahay maxaad ku cadeynaysaa in arrinta waxba ka jirin wuu yidhi madaxweynaha ka dambeeyay waa xorriyada qowl baa jirtaa la yidhi nin walba meesha uu horta ku fiiqaya madaxweynaha ka dambeeyay abtigii baa ka dambeeyay adeerkii ka dambeeyay eedda maxaa ka jira madaxweyne wuxuu doonay ma oran karaa qofku aniga ka jawaab kuma qasbani waxa muhiima waxa uu sheegayo maxkamadii iyo halkeedii uu ka yiraahdo ahayd hadda arrintaas way dhamaatay waa hore la sii daayay ninkaasi waa nin ka mid ah gacan yaraashi Cabdi Ilay waxaa la yiraahdaa magaciisa inshaar baa la yiraahdaa waa dadkii la shaqeysan jiray kooxdii TPLF tacadiyadii ka dhacay deegaanka ragii geystay weeye waa nin ka taajiray dhiigii shacabka Soomaaliyeed ee gobolkan waa nin aan sumcad fiican deegaanka ku lahayn laakiin sumcadiisa waxba nagama gelin maanta ma xidhna waxba looma haysto laakiin isagu wuxuu ka raadinayaa faa'iido siyaasadeed buu ka raadinayaa inuu yiraahdo madaxweynaha deegaanka ay xidhay maadaama uu ogaa Cabdi Ilay oo dadka xidha oo qofkii wax xidhaba madaxweynuhu ogaan jiray haba yaraatee wax maanta taagan maaha banaanka ku jooga xor buu yahay waana la xidhi karaa haddii uu dhibaato kala sameeyana birina waa la xidhi karaa waa gartay haddii uu tacadiyada geystay oo ka mid ahaa dadkiisa waa hadalka adigu dhigtay dhibaatada inta la qayb ka qaato ka beec mushtari dhiigga shariifka ummadda Soomaaliyeed waa saad adigu hadalka u dhigtay mar labaad muxuu dibadda u joogaayo sharciga loo marin waa wuxuu u joogaa maadaama anagu go'aankan qaadanay uu yahay markay noqoto political justice-ka deegaanka in dadkii dhibaatada geystay aan banaanka iska geyno intaan karayno iyadoo nidaamka iyo maadaama nidaamka systemka oo dhanba dambi la gelinayay wixii collaborators-ka ahaa ee dhibaatada geystay kulli aan la wada tuuri karin oo system caburin uu meesha ka jiray oo qofka dambiga lagu qasbeeyay haddana dadkii hormoodka ka ahaa dhibaatada isagii inta la halmaashay la midka ahaa haddii dadkii ay dhibaateeyeen ay soo dacweeyaan maxkamad geystaanna inaan ku taageerno haddii kalena maadaama baaxadda dhibaatadii dhacday ay ballaaran tahay annagu xukuumad ahaan inaanan dembi u raacan cidna hore aan u soconno waxa noo yaalla howlaha noo yaalla aan ku mashquulo go'aan aan qaadanay ayaa yaalla laakiin wixii ka dhacay deegaanka haddii aan nidaan sii gallo isagaa iyo kuwa kaloo la mid ah haddada aan taaganahayna waxay u haliilayaan uun wixii shalay ay u barteen ee ahaa in uun dad masaakiin oo Soomaaliyeed qaar bay diin ku dacweeyaan hadda ninkaas waxa lagu soo xidhay adigu wuxuu kuu sheegay madaxweynaha ay soo xidhay inaa shakhsi ka hadlo ma rabo laakiin ninkaas wuxuu dacweeyay niman culimo ah oo deegaanka Soomaaliyeed ayuu ku dacweeyay inay yihiin al-shabaab haddaan cadeynaya marka ayagu jaajuusay miya waa khalad muwaadiniin deegaanka oo salaada tukanaya darteed inuu ku dacweeyo al-shabaab weeyaan wuu ku khaldan yahay masbidaada noocaas loo soo xidhay marka iyada interesting وهجاج waxaan jeclahay oo kale inaan wax ka weydiiyo muddaad iminka joogtay dawladdaadu way caga dhigatay dhibaatada dadkii kala gaartay maxaa kuu qorshaysan waqtigaaga inta ka hadhay amase let's say 4-5 bilood oo soo socota maxaa kuu qorshaysan in aad caqabadaha idin hortaagan aad wax kaga xalisid mudan madaxweyne runtii hadda meel fiican baan maraynaa caqabadaha markii hore inaanu nidaamkii salka u dhigno xisbigii aan ku samayno reform lagu sameeyo oo aqoonyahan lagu soo daro iyo dad nadiifa haykalkii dawladda dib loo soo celiyo kala dambeyntii la keeno waqti dheer bay qaadatay laakiin hadda waan wanaagsannahay hadda waxaa noo qorshaysan in dhankii horumarka iyo isbeddelka nolosha dadka aan ka shaqayno
mashaariicdii bilaabatay wixii aan dhammaan in 3 bilood 4 bilood soo socota la dhameeyo adeeg ay bixiyaan in ganacsigii iyo dhaqaalihii iyo dakhligii loo jeedsado in institutionskii dawliga ahaa sidii cadaaladda nabadgelyada maxkamadaha civil service-ka ama public servant-ga oo 30,000 oo qof aan sanadka ku dhalinyaro ku soo darnay tayeynteedii inaan ka shaqeyno ee noo qorshaysan dhinaca siyaasadda in ururada magacyada qabiilka wata ee qabyaaladda nagu soo kordhiyay deegaan ku soo kordhiyay ee iscayrsanaya ee Soomaalinimada ka jecel muxuu ahaay magaca qabiilka inaan siyaasadooda la halgano inaan cudud midaysan oo Soomaaliyeed isu keenno cududda midaysan ee Soomaaliyeedna aanu tartan siyaasadda Itoobiya ka gallo oo arinta aan ka shaqeynaa noo qorshaysan waa gartay dhowr jeer waxaad ku celcelisay arrimaha diinta iyo dad ama ninkan hore uga hadloo kale ninkan iminka Mr. Dolaal oo asagu laftigiisa aad ku eedeysay aad sheegtay inuu maaragtay culamaa udiin Soomaaliyeed oo ahlu sharafa oo ku eedeeyay inay argagixisan yihiin dabadeedna ay keenayso marka in siyaabo kala duwan dadka ahlu diinka sharafta aad sheegtay looga faa'iideysto waa hadalka u dhigtay adigu laftigaagu intaad xilka haysay waxaad ogolaatay xaflad inay ku qabsadaan magaalada Jigjiga dad aan muslimiin ahayn oo markaas deegaamada kale ka soo jeeda arrintaas sidee ku dhacday mudane madaxweyne arrintaa waa ku saxanahay xaq bay u leeyihiin dalka aan ku noolahay ee Itoobiya waxa ku nool dadyo fara kala duwan oo qoomiyada kala duwan oo luqado kala duwan ku hadla waxaa jira diimo fara badan baa wadanka ayaa ka jira diinta islaamka ta kristanka oo iyadoo qaybo kala duwan ah ka jira marka dastuurka dalka iyo damiirka caadiga labadu wuxuu dhigayaa dadku inay si xor ah meesha ay ugu nool yihiin London baad ku nooshahay maalin baad ku tukataa shacab muslimiina ku nool oo xorriyad haysta marka dadka xaq jirka ah ee doonaya in dadka ayna isku diinta ahayn ay laayaan ama ay faquuqaan waan garan karaa su'aalaha noocaas inay weydiiyaan laakiin dadka xadaariyiinta adoo kala ee dalalka xadaaradda ku nool ee sinaanta bini aadamka aaminsan ee ilaahay baa kala saari doona dadka laakiin in la ixtiraamo human right-ka democratic right of the human being la ilaaliyo aaminsan su'aalahaas kale kama filin waa gartay xilligii aad adigu intaadan xilka haynin ka hor waxaad ahayd shakhsi xuquuqda insaanka u ololeeya oo meel walba ka hadloo yiraahda xuquuqda insaanka hala waardiyeeyo oo activista dadka siyaasadda dhaliilaa waxay leeyihiin mudane madaxweyne Mustafa wali waa activista weeye siyaasadiisa iyo activistnimadiisuna waa isku dhex qooshan tahay mararka qaarkoodna taas waxay saameyn ku yeelan kartaa go'aamada masiirka aad qaadi kartid koofiyadahan badan goormaad iska dhigaysaa mudane madaxweyne ويليهين هيدادان هاي barka ay waxa ay sheegayaan oo macna leh oo habaysan oo ah waxa iyo waxaas uu sameeyay waa activism waxa iyo waxa uu sameeyay waxa weeye maxay marka ay yiraahdaan ayaan ka jawaabaya laakiin sida barnaamijkii BBC-da waxay la tahay qof kasta wuxuu rabo inuu sheego inaan ka jawaabo maaha waa gartay mudane madaxweyne barnaamijku gabagaba ayuu ku jiraa iyo gunaanad waxaana jecelahay inaan ku siiyo daqiiqadaha u dambeeya adigu aad ku soo gunaanadid dabadeedna aan kuu mahadceliyo go ahead fursaddan baa haystaa cabdi xaafid aad baad u mahadsan tahay su'aalo qiimo fara badan oo shacabka u ifinaya waxyaalaha jirana waad weydiisay waxaan ku dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed in isbeddelka geeska Afrika ka socda ay taageeraan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya intii xilka uu qabtay Dr. Abiy waxaan nastay deegaanka Soomaalida kaliya ma aha waxaan nastay shacabkii Soomaaliyeed baa nastay meel walba joogaan yaa ku nasteen waxaa maanta muuqata ididiilo dawladnimo oo ka soo ifaysa dalkii Soomaaliya la oran jiray ama Soomaaliya la yiraahdo hadda la oran jiray oranayna marka fikradda ballaaran ee regional integration-ka ee ra'iisul wasaaruhu hogaaminayo faa'iidada ay keentay shacabka Soomaaliyeed inay gartaan ay ku taageeraan garab aan u noqono annaguna barnaamijka aan ku dardaarmaynaa arrinta kale ee soo korodhay waxa weeye xorriyadda diinta oo si fiican oo wanaagsan maanta dadkeennii meel walba ay ugu tukanayaan meel walba ay u marayaan iyadoo oo shalay toole sida aan kuu sheegayo ashqaasta hadda aad sheegaysid galaha ishaar iyo lamidkii ay ka ganacsanayeen dhiigga dadka islaamka ah iyagoo qofkii tukada ku tilmaamayay inuu yahay qof ama itixaada ama al-shabaaba
taasna kaga heli jiray dhaqaale kaga heli jiray dadkii la dagaalamayay dhaqanka suuban iyo diinta islaamka maanta inay taasi jirin oo iyagii ay qacan kuga bad yihiin oo iyagii ay been abuur iyo tilwaal eryanaya ay meelaha kale yihiin waa alxamdulilah wax soo kordhay weeye marka guud ahaan deegaanka Soomaalidu uu degan yahay wadanku waa nabadgelyo waxa kaliya oo jira kooxihii isbedelkani uu ku yimid dadka isbedelka qaarna wuu yimid qaarna wuu ku yimid kuwii uu ku yimid isbedelku ee 10 sano umada halaagay ee dadka laayay ee kala cararay hadda ee dhaqaalihii ay boobayeen ka go'ay ee gabdhaha kufsadeen laga joojiyay dabcan inaan amaanaan kama sugayno ay iyo aflagaado iyo ihaano iyo wax bay nagula kacayaan laakiin taas inaan u dulqaadano focus daan noqono shaqadana qabsano bulshadana horumarino cadaalad iyo nabadgelyo u horseedno sharci iyo kala dambeyn ku soo deegaanka ayaa noo qorsheysan kaligeena ma aha ee hogaamin tayo leh oo wanaagsan oo ila shaqaysaa jirta waxaan cadeyn waa in xisbiga anu hadda aan maamo deegaanka aan horjoogaha ka ahay inay yihiin xisbi midaysan oo inta hadda aanu joognay wax afkaar oo isku qabanimay wax qabiil isku qabanay aan lahayn haba yaraatay annagoo oo ka kooban dhammaan deegaanka Soomaalida halka xisbiyadii isku urursaday magaca qabiilku maanta ay u kala fadhiyaan 6-7 ay u kala fadhiyaan taas ayaa muujinaysa tayada hogaamineed ee deegaanka ka jirta waad maasan tahay telefishinka Universal TV-na waxaan rajaynayaa in shacabka Soomaali uu muxuu ahaayay deegaankan oo wax badan ka tirsada maanta laga bilaabo uu ka caawin doono inuu ku caawiyo xaqooda iyo dimuqraadiyadda inuu u doodo haddii taasi ha noqoto anaga inuu dhaliilo laakiin ay ku saleysnaato wax xaqiiqo oo jiro ka jira deegaanka hagaag mudan madaxweyne ugu dambeyntii waxaan jecelnahay haddii ilaahay yiraahdo Ramadaan baa soo dhow wixii Ramadaanta ka dambeeya in aanu barnaamijyo samayno sidaan oo kale aad nagala soo qayb qaadatid suurtagal ma tahay mustaqbalka dhow insha Allah taala sidaan oo kale aad bulshada u soo horfariisatid oo aanu markaa ku weydiino waxaanu isleenahay bulshada way ka dhex guuxayaan mar walba aad diyaar baan ku ahay wariye kaliya kuma arko nin Soomaali nationalist oo in badan barnaamijyada la socday oo isku dareenahay isku aragtinahay baan aaminsanahay inaad tahay mar walba diyaar baan ku ahay inaan marti aan ku noqdo bislaanshaha shacabkeenu maadaama meel fog gaadhin xalay clipka aan ku soo arkaysay dadkii oo dhan waxay noqdeen wada protocol sida meel la yeela lama yeelo kada marka taas oo muujinaysa in heerka garaadka bulshadeenu wali laftigeed curdan uu yahay oo maaragtay laakiin waxaan ku faraxsanahay in maanta ay barnaamijyada noocan in la duubo accessible madaxdu noqoto la iswareysto inay la qabsan doonaan mustaqbalka haddii la yidhaa oo ay noqon doonto wax caadi ah yaa ku faraxsanahay mar walba diyaar baan ku nahay Ramadaantana shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka muslimka waxaan u rajaynayaa in ilaahay maaragtay Ramadaan khayr qabta oo cuduradan iyo COVID-ka iyo waxaan jira ka badbaadiyo ayaan u rajaynayaa waad mahadsantahay mudane madaxweyne aad iyo aad baan si agar la'aana bahdan TV-ga Universal gaar ahaan ifiye kugu mahad celinaynaa inaad casuumaadda naga soo qayb naga aqbashay aad ballan qaadeen soo horfariisan doontid su'aalihii markaas aanu islahayn bulshada ay ka dhex guuxayaan intaan waqti u helnay aanu ku weydiinay waxaanu jecelnahay mustaqbalka dhow inaanu kula kulanno insha Allah taala oo su'aalahan iyo kuwa ka duwan oo ama ka badanba aanu ku weydiino ujeedada barnaamijka ifiyana waxa ay tahay oo kaliya siyaasiga ama qofka xilka haya in bulshadu ay la xisaabtanto oo ku mahad celinaya anagoo isku duuban guul iyo gobonimo ku rajeynaya mudan madaxweyne الله وبركاته وحقاق داوديال انت waxaanu ku soo gabagabeynaa barnaamijka ifiye ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya stuudiyaha TV-ga magaalada London oo aanu ku wareysanayna madaxweyne Mustaf insha Allah taala waxaan isku soo noqon doonaa xilliyada dambe markaanu waqti helnay inta aanu kala dib ugu kulmi doono dhinaca farsamada waxa iga caawiyay injineerkeena weyn Cabdixakiin Fiqi barnaamijka waxa idin soo saaray Cabdalla Mudhir dhinaca farsamada dhinaca magaalada Jigjiga guuleed ayaan aad ugu mahad celinayaa Axmed Gurxanna aad iyo aad ugu mahad celinayaa haddii la yiraahdo anigoo Cabdixafiin Maxamuud Jaamac ayaa idin la socodsiinaya intaanu kala dib ugu kulmi doono waa ifiye nabadgelyo